بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك سودو هذا channel كيجا أريمها هوينكا هذا هانو كلامر البعض قبرتين شيكوين حيصو له شيكوين كسو دعدوين كل عد دمرك أما أريمها هوينكا بدنا وحكي سبسين دمر بل سرقنا ويكجران لكن وحنا جعلنا إنه كفلان قيدنا قبلها بدنا وحيالها كدعو إن أصحابتا caaw waxaan idiin hayaa sheeko xiiso gaar ah sheekadaasoo inaad dhici karto inaad ku qosashaan ama inay idinka yaabiso la yaabtaan. asxaabta sheekadan waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed waana qiso dhab ah iyada ayaana ka sheekeysay oo qortay waxayna ku bilowday sida tan. waxaan ahay 35 jir aabay wuxuu dhintay anoo 4 jir ah hooyadeyna waxay ku raacday walaalkayga yar waxaana soo korsatay ayeeyadeen balse waxaan ku soo kornay nolol qalafsan ayeeyo waxna maysa haysan waxaan tii amaysa lahayn waxayna ku shaqayn jirtay booyaasanimo nolosha aan ku soo kornayna aad ayay u qalafsaneed runtii maalmaha ka mid ah ayaa ayeeyo waxaa shaqo siiyay nin taajir lacag leh kadib markuu maqlay inay caruur agoon ah koriso ayay waxay ka shaqayn jirtay ninkaasi gurigiisa balse ninkaasi wuxuu ahaa nin wanaagsan oo lacagta ayeeyo kaliya ee ku shaqaysa muusan nagu haleyn jirin oo uuna dhaqaaleyn jiray wuxuuna dhaqaaleyn jiray sida caruurtiisa oo kale wuxuuna dhaqaaleyn jiray maalmaha ciida maalmaha xafladaha waxaasoo dhan uuna dhaqaaleyn jiro dharka ciidii waxaasoo dhan asagaa naga dabari jira waxaan ahaa aniga galaaska labaad ee dugsiga hoose asaga ayaa ii gadi jiray buugaagta waxyaalo badan ayuu naga caawin jiray ayeeyo qof weyn oo da ayay noqotay kadibna shaqada ayay wadi weyday wuu iska dhaafay balse ninkaas nin wanaagsan uu ahaaye maadaama ayay shaqadii ay deysay muuse naga goosan dhaqaalihii oo sidii si ka fiican ayuu noo dhaqaaleyn jiray markuu guriga imaado waan salaami jiray gacanta ayaana ka dhunkan jiray isagana madaxa ayuu iga dhunkan jiray kadib maxaa dhacay markaan gaaray da'deeda 18 sano ayaan dareemay inaan ninkaasi odaga ah jacayl xad dhaafa u hayo balse ninkaasi da'diisa markaan qiyaasay wuxuu ahaa 60 jir anigana waxaan ahaa 18 jir balse ma awoodin inaad jacaylkayga ninkaasi u sheegto maalmaha ka mid ah ayaan ugu tagay gurigiisa asagoo kaligiis joogo balse wuxuu igu yidhi maxaad doonaysaa ma inaad jaamacad gasho mise inaad ayeeyo iyo walaalo u shaqayso wuxuuna igula taliyay maadaama ayeeyo ay qof weyn noqotay ay gabowday inaa ayeeyo iyo caruurta u shaqeeyo wixii aan ku shaqayn lahayo dhaqaalahana inuu iga caawiyo markaan damcay inaan ka soo tago ayuu wuxuu igu yidhi hoo lacagtan ayeeyo u geey si ay idinka dhigto biil aad raashin ugu soo gadataan balse meeshii la rabay inaan gacanta u soo taago oo aan lacagta ka qaato ayaa intaan ku booday aan hab siiyay ayaan dhunkaday balse waxaan ka war helay anigoo ooynayo ilmeynayo asagoo iska kayfujinayo oo idhahayo miyaad waalatay markaasaa waxaan ku yidhi adeer waan ku jeclahay markaas wuxuu igu yidhi gabadheyda aniga waa idin jeclahay waxaana idin jeclahay sida caruurteyda oo kale balse waxaan ku yidhi adeero jacaylka aan kuu qabo wuu ka duwan yahay kan caruurta iyo waalidka isku qabaan balse jacaylka aan kuu qabo waa kan dumarka iyo ragga ay isku qaadaan si dhabaana kuu jeclahay wuxuu igu yidhi xikmadda iyo caqliga iyo xishoodka ha ka tegin balse hadalkaas aad
ayaan uga naxay anigoo oynayo ayaana gurigiisa ka soo baxay oo aad u xisheenayo oo naxsan. kadib adeerkii muuse naga goosan salaantii iyo imaashihii muu naga goosane, sidaas ayuu noogu imaan jiray, balse wuxuu isku dayay inaan labadeena meel ku kaliyoobin. wuu isku ilaalin jiray inaan labadeena meel ku kaliyoowno. markuu doonayo inuu ila hadlo wuxuu ila hadli jiray ayeeye i walaalow joogo. maalin maalmaha ka mid ah ayuu noo yimid, markaasuu wuxuu igu yidhi waa layga kaa soo doonay, waxaana ku soo doonay nin dhalinyaro ah oo wax haysto, wax kastoo dumarka ay ragga ku xushaan haysto. balse waan ka diiday, waxaana ku yidhi qalbiga bini-aadanka hal mar oo keliya ayuu wax jeclaadaa. aniga ninaan jecleen ma guursan karo, mana u haayo qalbi aan ku guursado. aniga mana la noolaan kara ninaana jecleen, ee iga raali ahaw adeer. wuu iga tegay. muddo markii la joogay ayuu maalin warqad ii soo qoray. wuxuuna ku soo qoray waxaa iga kaasoo doonay nin dhalinyaro ah oo mustaqbal ifaaya leh, oono hanti iyo quruxna ilaahay ku manaystay. ee adeer ha dhuminin fursadda mar labaad ma soo laabato, hal mar oo keliya ayay fursadda kusoo martaay. balse aniga waxaan ahay qof jeceyl haayee dheg iyo jalaq uma siinin. waxaana ugu jawaabay adeer, aniga qalbigayga hal qof keliya ayuu maqlaa, dhegahayga hal qof keliya ayay maqlaan, indhahaygan hal qof keliya ayay arkaan. jaceylka aan kuu qabana inta kuma soo koobi karo, mana laga yaabo inaanan kala guursado. waxaan jeclaa ninkaas inaan mar un xaaskiisa noqdo, ama haddaan xaaskiisa noqon waayo aan noqdo kalkaalidisidiisa ama adeegtada gurigiisa ama gacanyarihiisa. balse ma ii suurtagelin. hadeertan aniga waxaan jiraa 35 sano, asagana waxaan ku qiyaasayaa da ahaantiisa 80 jir. muddo 10 sano ahna maanan is arag, balse welita wuu i dhaqaaleeyaa oo ciidii iyo waxyaalihii welita iyo hadiyadaha isdabajooga ayuu iisoo dhiibaa. si joogta ayuuna faamil ahaan ayuu noo caawiyaa. walaalahay wiilasheeni mid way weynaadeen, waxbarashadii way dhammeeyeen, mid wuxuu galay ciidanka, midka kalena wuu shaqeeyaa, labadoodina way guursadeen. waxaan la noolahay ayeeyo oo waayeel ah, waana ku qanacsanahay inta aan noole, inkastoo aan dhaafay da-dii guurka, balse maadaama aan guursan waaye gadaal ogama shalaynin, waayo qalbigayga hal qof keliya ayuu raacay. daruufo aan u guursan waayena waxay tahay haddii aan guursado qofkaas aan guursaday inaan qalad ka galo, waayo qalbi uma haayo, oo aniga qalbigayga qof kale ayuu jecel yahay, qof kale ayaana mar walbo niyadda ku hayaa. balse intaan qof bini-aadan dembi ka geli lahaa, aniga dembi haliiga gala ayaan isiri, mana guursan. sidaa darteed ayaana u guursan waaye. balse waxaan weydiinayaa walaalaha Soomaaliyeed, ma dembi baa inaan guursan waayey? ma dembi baa inaan noloshayda hal qof ku xiro? walaalaha Soomaaliyeed su-aashaas ayaan rabaa inaan weydiiyo. asxaabta, qisadaas waa qiso dhab ah, wayna gabar Soomaaliyeed ku dhacday. marka adinkan laga rabaa wixii jawaab ah inaad ka soo jawaabtaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.